meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad daawaneysaan waxaan idinku salaamayaa mar kale salaanta islaamka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan dabadeed ama salaan kadib halkani waa liibaan kuulow aniguna dabcan waxaan ahay liibaan. waxaan halkan maanta aan ku dhamaystiri doonaa qaybihii inooga haray magacyaalkii aan ka soo sheekeynay oo isagu ka qayb ahaa waxa loo yaqaan 8 qaybada hadalka oo ah kuwii aan hore ugu soo sheekeynay. dabcan si kooban ayaan u dulmari doonaa laakiin haddii adiga aad hadda daawanaya aadan weli arag waxa aad ka heli kartaa isla YouTube-ka fiidiyoodii hore aan kaga soo sheekeynay qaybihii hore ee aan hadda dhamaystirayno wixii inooga haray. haddii aan markaas si kooban u dulmaro waxa aan ka soo sheekeynay waxa ahaayeen waxa la yiraahdo 8 qaybada hadalka ama the 8 parts of speech. waxa ayna kala ahaayeen pronoun oo ah isagu magacyaal, noun oo aha magac, verb oo macnihiisu yahay ficil, haddii alla ku rooyahay adjective oo macnihiisu yahay sifo, adverb oo macnihiisu aha falkabe, and preposition oo macnihiisu ah isku xire, conjunction oo uu macnihiisu aha xiriiriye, iyo interjection oo aan soo sheegnay inuu yahay wax loo isticmaalo farxadaha degdega, murugada degdega iyo waxyaabaha cajaa'ibka oo intaas marka la isku daro waxay isku noqonaysaa 8 qaybada hadalka. annagu marka aan bilaabaynay waxa kaliya oo ka soo sheekeynay hal qayb oo aan maanta halkan ku dhamaystiri doono. qaybtaasna waxa la dhahaa pronouns, magacyaalada. magacyaalada iyada laftirkeedu waxay kula baxaan tirooyin aad u fara badan. tusaale haddii aan soo qaato waxa kamid ah waxa la dhaho personal pronouns oo ah magacyaalada iyagu dadka matala. waxaa jira magacyaal kale oo la yiraahdo impersonal pronoun oo isna ah mid loogu talagalay inuu matalo xayawaanaadka nool ee aan caqliga lahayn iyo waxa loo yaqaan materialska ama mawaadka ama jawmaadka oo kale. waxaa isna sidoo kale jira object pronouns oo isna ah magacyaal loo isticmaalo dalabaadka iyo bixinta amarada oo kale. waxaa sidoo kale jira possessive pronouns oo isna ah magacyaal lahaanshaha ka hadla. waxaa sidoo kale isna jira demonstrative pronouns oo ah magacyaal wax tilmaama, iyo relative pronouns oo iyana ah magacyaalada su'aalaha sameeya, iyo reflexive pronouns. haddaba intaas oo dhan way inoo dhiman yihiin oo ma aanan gaarin weli mid kasta oo kuwan ka midana waqtigiisa iyo maalintiisa ayaan dul istaagi doonaa. haddana tani waxay ahayd sharaxaad kooban aan ka bixinayay fiidiyooyadii hore ee aan kaga soo sheekeynay waxa aan ugu yeerno 8 qaybada hadalka. qaybtii aan kasoo qaadanay oo ahayd iyadu personal pronouns, magacyaalada dadka matala, impersonal pronoun kuwa xayawaanaadka matala, object pronouns kuwa wax lagu dalbado iyo sidoo kalena amarka lagu bixiyo, iyo possessive pronouns oo ah kuwa lahaansha. intaas ayaa si tafaasiil leh oo aad u deganayd kaga soo sheekeynay. waxaana ka heli kartaa fiidiyoyadii halkan kan ka horeeyay ee iyagana YouTube-ka ayaad ka heli kartaa oo ku jira. maanta marka waxaan rabnaa inaan dhamaystirno isla pronouns-kaas oo qaybtiisa ah. personal pronouns kaasaan soo sheegnay, impersonal waa soo sheegnay, object waa soo sheegnay, possessive waa soo sheegnay. waxaa noo dhiman marka waxa la yiraahdo demonstrative pronouns, waxaa noo dhiman relative pronouns iyo reflexive pronouns. haddii waqtigu noo soo gali karo waxaan rabnaa inaan 3 soo qaadano, haddii kalena 2 ayaan si kooban u soo qaadan doonaa oo aan sharaxi doonaa, dul istaagi doonaa ilaa xad inta aanu kari karno ee uu waqtiga inoo saamaxay. haddaba aan ku bilaabe haddii aan soo qaato matalan waxa la yiraahdo demonstrative pronouns. maxay yihiin demonstrative pronouns? inta caadiyan macquulka ah ama la ogyahay ama la yaqaano ee macruufka ah iyagu waa 4 xabo. waa 2 keli ah iyo 2 jamac ah. haddii aan si kale u dhaho 2 mufrad ah iyo 2 jamac ah, يعني لبا كلي أو كليga ka hadasha iyo laba jamac shaqadooduna ay kala duwan tahay. hadii aan ku bilaabo labada kaliga مثلا kaliga laftirkiisu waxa ka hadlayaa mid dhow oo kali ah, mid dheer oo kali ah. jamacna waxa ka hadlayaa jamac dhow iyo jamac dheer. tusaale ayaan bixinayna marka demonstrative pronouns la yiraahdaa waa magacyaalada wax tilmaama. waxaana ka mid ah this oo macnaheedu yahay kan, waa hal shay oo dhow oo aan dheereen. laakiin markii aan rabno inaan ka hadalno hal shay oo keligii ah laakiin naga dheer waxaan leenahay that, kaas. sidoo kale haddii aan rabno inaan ka hadalno wax noo dhow oo jamac ah oo badan waxaanu leenahay these.
haddii aan sidoo kale rabno inaan ka hadalno wax fog oo jamcana waxaan leenahay those. tusaale marka haddii aan soo qaato this is a pen oo kale, kani waa qalin, waa hal qalin oo halkan aan joogo hadda fadhiya iga agdhow oo aan iga dheereen, laanno this marka la leeyahay wax ku dhow ayaa laga hadlayaa, macnaheedu waa kanna waa taqaanaa waxay ka hadlaysaa waxa kugu xeeraraysan oo aan kaa fogeyn. qalinkan haddii uu xagga tago ama aan xagga geeyo isaga keligiis yahayna waxaan leeyahay that is a pen, kaasi waa qalin. laakiin qalinkii ayaan qalin kale ku daray, waxay noqdeen laba qalin. marka ay laba qalin noqdaan maxaan leeyahay? waxaan leeyahay these are pens, kuwani waa qalmaan. thistii automatically waxay isu bedelaysaa these. istii xagga ku jirtay ee singularka ahayd ama mufradka ahayd ama keliga ahaydna halkan waxay ka noqonaysaa are. beenkii xagga yile oo qalinka keligiisa ahaana halkan waxay ku dirsoomaysa s, marka waxay noqonaysaa these are pens, kuwani waa qalmaan. markii hore waxay ahayd this is a pen, kani waa qalin. haddana waxay noqotay these are pens, kuwani waa qalmaan. aan midkaa dheeraadna qalinkii ayaan qaaday xaggan geeyay, waxaan leeyahay marka waa keligii that is a pen, kaasi waa qalin, waa hal qalin. waan baxay mar labaad qalinkii ayaan dib tegay, qalmaanaan kor saaray oo kasoo noqday, waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo. marka waxaan leeyahay those are pens, kuwaasi waa qalmaan. kaas waxaa loo yaqaanaa waa demonstrative pronouns oo ah magacyaalada iyagu wax tilmaama, waxayna siiyaan tilmaanta fog iyo midda dhow. tan dhow ee keliga ah, tan dhow ee jamca ah, tan fog ee keliga ah iyo tan fog ee jamca ah, intaba waa loo isticmaalaa. haddii aan marka taa halkaa kaga gudbo yaa axbaabi oo aan markaan haddana isdul istaago, waxaa la yidhaahdo relative pronouns, magacyaalada su-aalaha sameeya. maxay ka kooban yihiin? waxay ka kooban yihiin what oo macnaheedu yahay maxaa, where oo macnaheedu yahay xaggee, when oo macnaheedu yahay goormee, why oo macnaheedu yahay sabab, which oo macnaheedu yahay kee, who oo macnaheedu yahay kuma, whose oo macnaheedu yahay yaa iska leh, iyo how oo macnaheedu yahay sidee. tusaale yar yar ayaan gelinaynaa. what is this? waa maxay kan? this is my book, kani waa buuggayga. where are you? warku aaway adiga xaggeed joogtaa? I am at home, ani waxaan joogaa guriga. when will you come back? goormaad soo noqonaysaa? I will come back tomorrow, waxaan soo noqon doonaa berri. why are you here? sababtee baad halkan u joogtaa? I am here to see my friend, waxaan halkan u joogaa inaan arko saaxiibkay. which village do you live? xaafadee ayaad degan tahay ama ku nooshahay? I live in Bawadi, aniga waxaan ku noolahay xaafadda Bawadi. who are you? adiga kuma tahay? I am Liban, anigu waxaan ahay Liban. whose car is this? gaarigan yaa iska leh? it is mine, aniga ayaa iska leh. how are you? sidee tahay? I am fine, anigu waan fiicanahay. thank you, mahadsanid. labadan aan hadda ka sheekeeyey ayaan ku joojinayaa, laakiin aan ku celiyo mar kale. waxaanu ka sheekeynaynaa keliya waa laba magacyaal. mid waxaa la yidhahdaa demonstrative pronouns, waa magacyaalada wax tilmaama. waxaan kuu sheegay in keliya uu ka kooban yahay this oo ah kan hal shay oo dhow, that oo macnaheedu yahay kaas hal shay oo fog, these oo macnaheedu yahay kuwan jamac halkan dhow, iyo those oo macnaheedu yahay kuwaas oo ah jamac fog.
tusaalayaal soo geliyay waxaan ku dhahay this is my book oo kale kan waa buugayga, that's my pen kaasna waa qalinkayga, these are my books kuwana waa buugagtayda, ama those are my pens kuwaasi waa qalmaantayda. waa ka soo tagnay waxaan ku nimid relative pronouns oo ah magacyada iyagu su'aalaha sameeya. what maxaa, where xagee, when goormee, why sabab, which kee, who kuma, whose yaa iska leh, iyo how oo micnaheedu isle. qaybta kale ee hartay ah iyadu reflexive pronouns-ka waqti kale ayaan dul taagi doonaa. waxaan filayaa inaad halkan insha allahu tacaala ila soo gaarteen. haddii marka ay jirto cilad ku aadan hadda casharkan halkan ka sheegayna si fudud waxaad igu sheegi kartaa qaybta hoose ee commentiga adigoo aad mahadsan. haddii aad u baahan tahay inaad dib u raacdo casharkii kan ka horreeyay si ay isku xirankoodu uu hal mar isu raaco, waxaad mar kale dib ugu noqon kartaa fiidiyoodii kuwan ka horreeyay aan kaga soo hadlay 8 qaybood ee hadalka. waxaa intaa ii dheer, fadlan haddii hadda qofkan adiga ah ee daawanaya aad hore ila joogtay aniga oo ah Liban, waan kaaga mahadcelinayaa la joogistaada iyo daawashadaada. haddii haddaba aad tahay qof igu cusub, fadlan waxa si walaaltinimo leh, bini aadanimo leh, dadnimo leh, galgacal leh kaaga codsanaya kuna xasuusinaya inaad YouTube-ka subscribe inoo saarto, muuqaaladeena like tiraahdo, siina share garayso haddii ay ku suuragali karto. haddii sidoo kale aad rabto inaad wax noo sheegto, noo soo jeediso talo, fariin iyo tusaaleynba, inaad qaybta hoose ee comments-ka iyagana fariintaada noogu reebto. aad ayaan idinku mahadcelinayaa, waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. tan iyo inta aan mar kale dib kale barnaamij ku aadan waxbarashada qaybta 8 qaybood hadalka aan dib isugu soo noqon doono. waa Liban Kulow oo idin leh fi amaan illah, mac salaama.